السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روان دي سلامي سو دوادا سومالي محمد وادي السلام يا دمانتين روان دي سلامي سو دوادا waxaan jeclaan lahaa inaad sheergalaysaan intay daawanaysa iyo intay dib ka daawan doonto dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan idin salaamay salaanta islaamka kor ku soo sheegay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar baa waxay soo qorayaan nasniyo dheer qaado inaad nasniyo ma yaalo qurbaha haddaad timaado dadkiina Afrika jiro laba qodob baa loo yimaadaa qof naftiisa guba oo shaqo u go'a iyo qof food stamp qaata oo meelaha jooga labada qolaa la kala yahay taariikhda intaan ku noolaa aan maraykan joogay habeen shaqa la'aan ma noqonin shaqaana u imid haddii aanan shaqaynaynin oona dhafurxumada iyo rafaadka aanan xamilaynin waxaan joogi lahaa reerkanagii waddankii aan ka imid baan joogi lahaa hilibkii furaashka baan cuni lahaa meesha shaqaan u imid taasi waa intaa ragna rafaad waa loogu talagalay aad baad umahadsantahay gabadha iisoo qortay nasniyo dheer qaado inaadan waa mahadsan tahay meeshii nasniyo lagu qaadan lahaa iyo waqtigeeda midna ma joogo inaan nastana diyaar uma aad baad umahadsan tahay war intaa marka aan ka gudbo intaas waa kaftan saddex qodob baan ka hadlahayaa haddii alla idmo waxyaalo kale marka aan saddexdaa isla meel dhignana waxyaalo kale aan ku dari doonaa haddii alla idmo waxyaalahaas jeebka igu jira hayaan ciwaan kuma aana soo darin kow waxaan ka hadli doonaa waxaan arkahayay odayaal yidhi absame kuumadaanu nahay oo jigjiga ka hadlahayay hadalkooda waxbaan ka dhigi doonaa haddii alla idmo ilaahay igu simo waxaan ka hadli doonaa oo kale haddii alla idmo ogaadanyana waxaan war idinka hayo waa kaanu sheegay inay gurmad soo sameeyaan waa kaanu sheegay dagaalka inay galaan waa kaanu sheegay haddii ayna dagaalka galaynin iyo doorka reserve area degan ee la degan in uunan ku dhimanin laascaana iyagoo jooga bartooda yacnaha ay iyagu ama ku dagaalamaan ama isku abu ku wada joogaan arrintaana war baan idinka siin doonaa haddii alla idmo inta aan ka hayo odayaasha hadlay iyo arrintaa oo war idinka siin hayo waa ogaadeenku absame kuumada iyo informationkiisa oo wada socda waa qodobka labaad idoor baan hal dhihi doonaa haddii alla idmo kilibyo badan baan dhegaystay la ii soo diray ay ku wada hadlahayaan ay been isugu sheegahayaan ay waxaan jiri sheegahayaan talaxumadii ninkii muxuu yidhi shalayna waa talaxumad maantana waad orad xun tahay talaxumadii shalay ay wadeen un ay wadaan oon macna u samaynaynin ilaahay bini aadamka adduunkan kada uu keenay wuxuu u keenay oo bini aadam inooga dhigay oo adduunkan kada waxa jooga oo dhan laynoo mulkisiyo caqligu inuu macna inoo sameeyo xumaanta inaan kaga leexanno gafka iyo gardarrada inaan iskaga celinno inaan ku tashanno caqligu waa inuu ku hogaamiya laakiin ma aha inaad sida xoolaha u dhaqantid haddaad sida xoolaha u dhaqantid dee waxba ma dhaantid xawayaanka aynu dhaqanayno iyo geela iyo baahinta aynu qalanayno waxba ma dhaantid waxaan rajaynayaa dhagihii ilaahay waaniyaa waan sama laakiin qofku marka uu kibro hawadaadu hadday been kuu sheegto dantaada run kuu sheegtaa la yidhi qofku marka uu kibro ilahay baa qur-aankiisa ku sheegay 3 jeer baa reer bani israa'iil inay adduunka qabsanayaan marka dambana ay jabhayaan ilahay qur-aan ku sheegay adduunka waynu aragnaa maanta iyagoo u wada adeega laakiin waxaan garan lahay ninka maskiinka ah ee iidoorka ah ee jooga hargeysa iyo burca ee labadaa keli ah jooga ee kibirsan ee miidiyaha wuxuu doona iskaga hadlahaya iidoorow afgudbeed waxaa layihi nabadna waa kaa gaya caladna waa waxa kaama qabto iidoorna hal baan dhihi doonaa haddii alla idmo waxaan la hadli doonaa oon si guud ula hadli doonaa daarood haddii alla idmo daarood
D5 baan si guud ula hadli doonaa jilib kasta oo daarado biyaha daarado gooni baan ula hadli doonaa meesha marka aan soo galay hadalkaygu laba qodob buu isugu jiraa waa mid aan dadka aan ka soo jeeda ee daarad kula hadlahayo oon iyaga ku siinhayo garashadayda wixii ilaahay fikirkayga ay tusay iyo mid information oo dadka aan la wadaagahayo daarad waxa aan kala hadlahayo iyagu gooni u yahay dadka idin lama wadaago 71 inaa sheergaraysana waa jeclaanaa si fariinteennu meel dheer ay u gaadho wixii kale in dib kaga dar dib baan idinka sheegi doonaa odayaal baan arkahaya saaka la ii soo diray aalasay oo ka hadlaya jigjiga waxaad ku hadasheen mid baan ka dhihin idinku waxaad tihiinna mid baan ka dhihin odayaashii absame ee anigu aan arki jiray ama kuumada aan arki jiray horta hal nin oo idinka garta ma aana arag niman koofiyad baclayaal ah oo isu ururay danta aad leedihiin anigu ma aana garanine oo gaas dhagoolo ah oo aan waxba ogeyn inaad tihiin baa ii soo baxday waxaad ceebayseen magacii absame kuumade waxaad ceebayseen ood xumaan iyo dadnimo xumo iyo garasho la'aan u soo jiideen dadka aad sheeganaysaan ee absame haddaad tihiin iyo haddaydaan ahaynba in kasta oo raggii anigu aan garanhayay ee absame garaadadii iyo ugaasyadii nin uuna idinkaga jirin haddana waa laga yaabaa inaad tihiin laakiin rag wax og ma tiidin idinka waxbaan idin dhihi hadalkiinni waxbaan ka dhahahayaa hadalkiinni waxbaan ka dhihi horta idinku absame kuumada marka aad tihiin waxaad tihiin niman daarooda oo haddana kabla laxa waxaad dhahdeen oo hadalkiinna aad ugu badnaa oo aan aad u dhegaystay waxaannu nabad ugu baaqaynaa habar jecele iyo dhulbahante languageka nooca markaad isticmaalaysaan inaad yaxyaxdaan bay ahayd inaad xishootaan bay ahayd inaad isla yaabtaan bay ahayd haddii aadan waxba ogeyn soomaalida waxaa la yidhi been way sheegtaa laakiin been ma mahmaada xaajana ninaan ogeyn baa indhaha ka ridaa la yidhi haddii aadan waxba ogeyn oo aadan xogogaa lahayn xaaje aadan ogeyn lama galo because iyo inaad xaajadii aad khaladid bay keeni waxaad aad ugu celceliseen habar jecele iyo dhulbahante bal caqliga iyo garashada ilaahay idin siiyey haddii aad wax og tihiin iyo hadday aqli idinka tahayba bal waa sidana ila fiiriya dhulbahante waa jilib siciid harti oo harti ka mid a 7 ilma harti buu ka mid yahay idinkuna waxaad tihiin kablalax oo harti iyo kablalax baa walaala ah habar jeclada aad ka hadlaysaan waa 4 jilib oo iidoora oo iidoor ku soo abtirsata hal jilib oo ka mid ah 4 jilib ee habar jeclaba waxay la fac yihiin kuma nimanka la yidhaahda kablalax garxajis marka la yidhaahdana dee iidoor bay ku soo wada arooraan dhulbahanta waa wiil ina harti ah waxaa la yidhi islaam baa intay wiil dhashay wiilkii hadal laga waayey alla ilaahu wiilka iga hadli alla ilaahu wiilka iga hadli alla ilaahu wiilka iga hadli wax walbo ilaahay aad ka baryaysana qof islaana marka aad tahay waxaa fiican inaad ku ladho waxaasu hadduu khayr kuu yahay wiilkii ilaahu iga hadli markii ay lahayd wax khayr le ilaahu iga hadli ma ayna dhihina waxay tiri ilaahu wiilka wax aan looba jooginoo iyadii hooyo liddi ku ah buu ku yidhi anuu afkayga ma soo marin kareen hadalkaa waxaan uga dan leeyahay inaad iska aamustana wadday ahayd dagaalka soo bilowday 2023 bilowgeedii ee irir samaalo oo uu ku jiray oo dhan ee orama ay ku dhimatay ee godabiirse uu ku dhintay ee ciise uu ku dhintay ee urur samaalo uu ku dhintay
ee iidoor uuna u kala maqnayn ee gabooya uu ku dhintay ee aynu isla ogayn ee wakhtiga intaa leeg socday ee aad ogaydeen maatidii dhulbahante idinka oo niman kabla laxa oo laandheerihii daarood ah ogaadeen iyo absamow iyo kumadow aydaan waxaad ka geysateen uuna jirin taageero kale mooye aydaan gelin laandheeraha waa in loo baxsado xoggiis waa inuu macno sameeyo ee aynu isla ogayn ee soomaali oo dhan xogta ay taaka u haysay waxaa nasiib darro ah ee dagaalka aynu isla ogayn ee intay jebiyeen oo magaaladoodii ka saareen iyagoo madaafiicda maatidoodii iyo carruurtoodii lala dhacahayo oo 380,000 magaalada laascaana keli ay ka qaxday dhulbaantaha kale kuma jiro ee magaalada aad ku nooshihiin eed sheeganaysaan eed ka hadlaysaan ee jigjiga ay maatidii ka soo qaxday idinku imanaysay ee intay iska saareen ay dhaheen taaka ayna ku gudbin dadka ayna dulminin ee oog iyaga oo ilaa hargeysa ilaa burca ciidankiina jebiyey waxay haysteenna qaatay ay dhaheen halkaa hayna dhaafinina dulmiba iyagu inagu sameeyeene in allaha maca saabiriina ilaahay mucooda wuxuu yahay kuwa samree waa waxaynu ku guulaysanayna waa samirka ayna halkaa dhaafin ayna dhaheen ee maatidii ka soo qaxday laascaana iyo ssc ay idinku timid magaalada jigjiga ee aynu isla ogayn ee ilaa wakhtigaa dagaalka la abaabulahayay aynu isla ogayn ee la hubgadan hayay ee ciidamo xitaa gobolka ogaadeen lagu soo tababaray oo etoobiya u tababartay xitaa ay gudaha yimaadeen ee idinka inta laydin yimid la yidhi kaalee dagaalka gala dhulbaanta lagu duulahayaa waa ugu taaniyadeenayaa dowladda deegaanka inaad diideen oo dhahdeen annagu kuma duulayno dhulbaante wada dhalashaana naga dhexaysa haddii dhulbaante lagu duulana halkanu dagaal ka dhacaya arrintii nooca ahayd maanta inaad dhahdaan habar jeceli iyo waxaanu gogol ugu baaqaynaa dhulbahante shame on you baan idin leeyahay ceeb baa idinka buuxda madhmadh baad ku hadasheen ceeb baa idinka buuxda rag wax lala hor yimaada ma aydaan la imanin magaca absamaad ceebayseen iyo kumade magaca ogaadeen baad ceebayseen nin baa beri loo bixiyey gadh nin kala sidee rag aad u gadh waaweyn baad ahaydeenoo waa idin arkaya marka aan idin qiimeeyey anigu aan idin fiiriyey niman wadaada iska dhigo oo gadh waaweyn oo akhriya adduunna aan ogayn oo anigu aanu bixiyey keligeed noolayaal oo soomaali gobolladooda meel walba ku nool oo iyagoon waxba u ogayn mar miidiya iska qabsada oo wax ay soo biiriyaan aan jirin oo xaajada bartanka darabudhla geliya kuwaan baan idiin fahmay inaad tihiin laakiin nin absama ah oo dhiig leh oo dareen leh oo biyaha daarooda oo saaka aan xogta waddankaa iyo meesha waxa ka socda aan ogeyn ma jiro waxaan idin leeyahay waxaad ku hadasheen madhmadh waxaad ku hadasheen wax aan rag ku hadlin oo qurun ah baad ku hadasheen waxaad ku hadasheen ceeb iyo ilhaano iyo inaad ceebaysaan dadka aad ka soo sheeganaysaan magacooda inaad ceebaysaan baad ku hadasheen waxbana kama jira wixiina dhowr iyo 20 nin buu idoormarahayaa oo mar walba intay soo duulaan ay ayar gaado ku dilahayeen iyo ay ku dilahayeen dhulbahante marka laga jawaabana iidoor wuxuu la taagan yahay waa nala weerarahayaa oo waa inaan istifaacno waynoo garow iyo guusha nimankaa meesha ka hadlaya addoonta ohow ee absamo sheeganhayo waxaan idin idhi horta su-aasha aan idin weydiinaya dhalasho ahaan haddii la yidhaahdo ogaadeen khaasatan marka la yidhaahdo waa labada hooyo walaal waxaa la yidhaahdaa haddaad walaal maqashay walaal aabbahaa dhalay walaala ma tiidin walaal waxaa weeye hooyadaa midka ay dhashay ninkii aabbihii baha badan leeyahay baana og arrintaa midka aad walaalka dhabta ah ee dhiigga ah ee danqashadiisu ku taabanaysa waa midka aad uurka hooye wada seexateen dhulbaantay ogaadeen uur hooye wada seexdeen niman ilmaadeera oo calidhuux iyo qamaan bulxan iyo wakhtiga isu gabyahayeen iidoor oo soo jabay oo dagaalkii rayidka la yidhaahdaa ee wakhtigii ingiriis intuu waddanka
ogaadeen iyo dhulbaanta ingiriiska col bay la ahaayeen intay jabeen hadiyadda loo siiyey dhulka reserve area iyo dhulka dhulbaanta ee hadda la soo dejiyey oo ilaa iyo baashii aynu isla ogeyn oo dhulbaanta markii uu jabay daraawiir jabtay ah waa kii cali dhuux markii uu wardheer yimid hashii iyo doori ka cabaysay ee la waraabinaya ilan dadku marka ay qaxaan ee qola jabto ama abaaro ay dhacdo waa la isdhex degi jiray waa kii ka gabyey ee diiday hal iyo doori inay wardheer ka cabto cali dhuux alla u naxariistay markii uu gabayga tiriyey qamaan waa kii ka jawaabay idoordir weeya hadduu la soo bixiyo dinji habar magaalaha hadduu dabacsano u siiyo erey baan uga jeedaa horta yaa la da'ah weylayaab dawyadaad xuli marka aad iidoor oo siqiir iyo kibiir aynu isla ognahay oo kuwa idinla jooga ee garxajis waan gurmanaynaa ay lahaayeen oo gaashaamo iyo heblaan ka soo baxayna ay idin lahaayeen aad leedihiin dhulbaanti habar jeclaan ayaan heshiisanayna waxba kama jiro waxaad ku hadasheen waxaan jirin waxaad ceebayseen magacaad sheeganaysaan mana matasheen mana ku hadli kartaan afka absame maslaxana laydinkama baahna laba option baa idin yaalla haddii nasabnimo ay jirto ama dhalasho ay jirto haddii damiir uu jiro ama dadnimo ay jirto waxay ahayd nimanka lagu soo duulay baa tihiin oo dhulbaanta isku qoys baa tihiin iidoor oo dhan baa isoo raacay iyo urur samaalo oo dhane inaad dagaalka la gashaan way ahayd inaad iska aamustaan ceebihiinana way ahayd intaa wixii ka dhexeeya madhmadhe saasaan anugu arkaa laakiin waxbaan yaa tahay adugu markaa maslaxada adugu aad gogol dhigaysa yaa tahay iidoor oo sikhiiriya kibiir la yidhaahdo iyo urur samaalaha dagaalka ku jira adugu yaa tahay horta marka dhulbaanta soo ma tiid oo isku qolo ma tiidin haa nin walaalkii ii hiili yidhi hoogan laabaday soo maahan gabaygii ceeb baa idinka buuxda mar dambana ha ka hadlina miidiyaha marmarka aad ku hadasheenna ha ku hadlina idinka intaasaan idin leeyahay maslaxa laydinkama baahna laba option baa meesha taalle kaad yeelaysaan idinka idin taallaa gunnibaad qaadateene weligeen iyo allehen dadka waan ka dambaynaya ama iska seexda oo halkiinaa fadhiya adduunka markii la isku rogmado meesha uun idinku fadhiya laandheeraan ahay la fadhiya waa qodob soo gurmada oo rag intaad iska dhigtaan tolkiinu imaado iidoor laabtuu garaacday laabta intaad garaacantaan hargeysiya berbera soo qabsada oo dekadaha soo qabsada oo iidoor waxa uu dhulbahante la raadinaya isaga ku sameeya maxaa ceeb idinku ah iidoor dhulbahante inuu miidiyaha la fadhiya annaga weeye iidoor daarood ma aha daarood buu sheegtay buu la fadhiyaa meelaha ilaan aqli kuma ogeyn anugu iidoor dhalashadiisa iyo nasabnimadiisu haddii aad iidoor wanaaggiisa rabayso iidoor minka aad ka aragta xabad karka sii option kale ma leh gabdhuu ku keeni wuu ku abaal marin wuu ku soo dhoweyn allah u naxariiste allaha ka raalli noqdeen nacali shocaa la yidhaahdo yaa wuxuu arkay niman qabdaharro oo iidoor waa gabiya wuxuu yidhi xaggeed ku aragteen reer warfa markana la yidhahda ama reer cabdillahi qabdaharro degandee niman reer dal la yidhahda iyo niman reer cali yusuf la yidhahda deris la ah oo habar yoonista ay soo gaadhaan wuxuu yidhi iidoor gobanidiisa ma rabtaa haa xabad karka sii wax kaa cabsan hayo wuu kuu loogayaa wuu ku soo dhowaynayaa wuu ku martiqaadahayaa laakiin gobannimo kale kuma jirto waana xaqida dhabta anaa kuu sheegaya hadda taa intaasaan kaga gudbahayaa waxaa kale inta aan ogaadaya ka bixin oon war idinka siin hayaa anigu ninka ragga ah haddii uu wanaag sameeya wanaaggiisa waan qaraa hadallada isoo gaadhahaya in kasta oo aana xaqiijin karin oo xaqdooda aana haynin hadallada isoo gaadhaya tolkay dhulbaanta waxaan idin leeyahay xadku waa xidhan yahay habar yoonis iyo garxajs iyo ciidagala dambe ogaadaya intuu ka soo baxo dagaal imanaya ma jiro mustafa waa ku mahadsan yahay xadka wuu xidhay waa ku mahadsan yahay baaq buuna soo saaray degaanku oo waxaa la yidhi hal shaksi oo ka gudbi kara oo gurman kara ama dagaal ka baxsan degaanka geli kara ma jiraa la yidhi xadku waa xidhan yahay ciidamo liyu boolisaa la dhoobay qof qari wata ama qof soo gurmanayana lama arki karo horey baan anigu fikirka u aaminsanaa hargeysa dadka degaanka in ay hargeysa
ay maalina ka qadayaan maalina ay ka qadayaan ogaadanyana waa khalad horey baanan u fikirka u aaminsanaa dhulka waa in la kala yeesho iyo doorna dhulkiisa waa inuu joogo labadiisa magaalo ee sagaaradu xitaa inaan ku noolaan karin uu joogo ogaadeen iyo daaroodna dhulkiisa waa inuu joogo anuu fikirkaa horey baan u aaminsanaa laakiin hadallada la ii sheegaya xadku waa xidhan yahay hal qof oo ka soo gurman karana ma jiro gudaha iyo doorka ku jira gudahay joogayaan dhowrkii boqolaad sheeganaysana hore idinku yimid akayada la yimid allah idinku cafayo ciidoorow taana intaasaan ka hayaa xogta kale aan hayo horey baan idinku sheegay waxaan idhi annagu dhoweyn baan nahay wax annagu uu daahaa aakhir dagaalka waan geli doonnaa horeyna waan u sheegay waana aaminsanahay oo arrinta rajo weyn baan ka qabaa inuu ogaadeen dagaalkaas soo galo oo idoor la soo raro taana intaasaan kaga gudbahayaa waxaa ii soo hadhay idoor kilibyo meelaha la wareejinhayaan maqalhaye ragga garyaqaanka ama xaajada yaqaana ragga garyaqaanka ah nin aan xaajada aqoonin haddii ay gar isugu yimaadaan hadalkuu ka lumaa anaa garyaqaana iyo ismelihi laakiin aqligayga yarta ah intii yarayda maskaxdayda ku jirta way iga luntay maxay iga luntay waxay iga luntay qofka adigu aad u jawaabayso waxaan been ahayn haddii uu ku hadlo oo been iyo khiyaali un qofka uu ku hadlo waxaa kugu adkaanaysa hadalkaas sidaad uga jawaabto idoor waxaan dhegaystay kilibyo ay soo duubeen oo laleeyahay nin kasta mucaarad iyo muxaafid midkii soo baxaba 7 sane ee soo socota muuse marka la doorto dagaalku waa inuu socdo dhulbaanta waa inuu noqdo dhulka uu leeyahay dhul isaaq waa inuu noqdo dhulbaantana waa inay tagaan waxay lahaayeen nimankaasoo aan dhegaystay daarood isagii baa la haystaa oo jigjigana axmaara haysata kenyana waxaa haysata sandhuudhi soomaaliyana xasan sheekh baa haystaa caqliga iyo doordhe caqligu maskaxda hadduuna ku jirin oo maskax una ka imanin ama caloosha uu ku jira caloosha waxa loogu tagay dee waa la garanayaa qashin iyo raashin baa loogu tagaa caloosha inaad ka fikirto iyo caqliga inaad ka fikirtana maskaxda inaad ka fikirtana waa kala duwan tahay dadka caqliga u saaxiibka ah maskaxday ka fikiraan maskaxdu waa 4 qaybood qayb baa xusuus qaabilsan oo documentary oo wixii la soo maray kiib garaysa qayb waxa iman doonay ka fikirtaa qayb waxa markaa joogtay ka talisa hawluhu waa qaybsan yihiin horey waxaan idiin idhi oon anigu idiin sheegay idoor wixii uu ku taamahayay 34 sano uu daarood raadinhayay ee daarood ka hadlahayay ee daarood baa sidana daarood baa nalaaye uu lahaa muxuu ku soo dhammaaday arrintaas maxay ku soo dhammaatay arrintaas waxay ku soo dhammaatay ninka haddaad raagisa aakhir waad heli 34 sano lafay wateen 34 sano lafay wateen lafaha ay wateenna dhulbahantaa lafihii ka daadiyey 100 sanoo kalena waan sugaynaa waa qoyskii harti ugu yaraa uguma yaree iyaga ugu warangalsane waa qoys dhalasho ahaan markii leeyahay waa qoys yaroo hoose dee ujeeddadaydu inay laangaab yihiin maaha soo siqiir iyo kibiir maca urur soomaali intaad u yeedhateen wixii aad akhriyayseen dhulbahanta kabaha dhabarka idinma saarin caqli haddii uu idoor leeyahay oo garasho uu leeyahay idoor ood garasho leedahay 34 sano waxaad ururinaysay 15 daqiiqa magaalada laascaano lagaaga saaray iyadoon hub diyaarsanayn iyadoon colaad loo diyaar garoobin iyadoon technical la haysanin iyadoon daaro dhaqaalihiisu soo gaadhin iyadoon maalin dagaal la haysanin ma lagaa saaray maanta oo 1500 oo gaari oo technical ah oo dhulbaanto keli ah iyo ilaa 3000 oo daarood ay ku soo wajahan yihiin laascaano inaad qabsan miyaad u malayn okay idoorna taasaan kaga gudbi laakiin meeshan waxaa ii yaalla maxaa kalifay idoor inuu heerkaa gaadho inuu sidaa u fikiro daarood baa sababo daaroodoo adaa sababo
labadan magaalo ee xunxun ka ahee berbere iyo hargeysa maxaa diidaya daaroodo inaad ku dhul daarood bay awal baahida inaad ka dhigtaan wax diidaya ma ii sheegi kartaan neef fadhi aad ninkaad weydiisanayso neef geela ninkaad weydiisanayso neef fadhi aa la weydiiya neef biya soomaha neef lo aa la weydiistaa ma neef fadhi neef ninkaad weydiisanayso neef geela la weydiistaa bay ahayd maamaadu 25 malyan idinkoo ah qoys 1 milyan aan gaadhin in uu idiin hanjabo oo maatidiinna iyo carruurtiinna maalin walba laga kari laayahay ingiriisku wuxuu ku maamaa xalka ugu dambeeya bini aadamku waa dagaalka burco maalinkii haddaad gaadhi lahaydeen laba gaatamataga inta ingiriiska uu nagu wareejiyey basaaka lagu wada hadli lahaa wayna dhici lahayd laakiin ma ka warqabtaa garashada iyo aqliga garaadada iyo cuqaasha dhulbaanta ay garteen ay dhaheen maatida aynaan dulminin ii doorinu yidhi waxay nooga joogsadeen way naga baqayaan allahayow nin gobobaan hoogunu rifaysaaya allahayow garaadkaygu waa labada geesoode nimankaa salaadiya u dhigay subacyadii diinta sala allahu allahuma salli calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim sala allahu nabigii raggan saamax uga doonay nimankaan sagooti sayid maxamed cabdullah xasan daraawiishu markay jabtay yaa raggu dee jabiye ciidankii markuu burburay yaa raggii kala biiqbiiqmay sayidkii oo berri subax oo kale duulaankii ingiriiska sugahaya yaa raggii ciidamada dagaal gelinhayay yuu waayey markaasuu gebiyey nimankan salaadii u dhigay subacyadii diinta sala allahu nabigii raggan saamax uga doonay nimankan sagootida fardaha sii odhanayay axmed fiqi sawaabka uma helin sadaqadayda iyo sullankooda naar iyo guniya saaruqya helay saaxiibka iyo shabana waa sima lagu reebiya sokeeyi xigaalana rabisaaca maanta nimankaasu rag intay jabeen oo ciidankoodii jabay dee kala biiqbiiqmeen markii daraawiishu ay sii baaba'aysay bay ahayd sayid gobigaasu tiriyey waxaan idin leeyahay daaroodow maalinkii horraysay dagaalku bilowday baan hadalkaa idin idhi welina waan taagnahay ninku hadduu gun yahay waa lala gunnimo diraraa ninku hadduu gob yahayna waa lala gobannimo diraraa languageka uu ninku garanhayo baa lagula hadlaa languageka uu garanhayo ee fahmayo luuqadda uu fahmayaa lagula hadlaa languagekaasu muxuu yahay languageka ninkaasu uu garanayo idoor waxa weeye laandheeranimo in laysu sheegto oo wixii somalilan la odhan jiray iyada waa la raafay oo waa baaba'daye laandheeranimo in laysu sheego oo wadnaha layska garaaco nin walba wuxuu yahay uu ahaado oo dhulbaanta markay maqlaan iyo daarood ay iidoor riyada ku qarwaan wallahi taa idinka fursan mayso waad ka warwareegaysaan oo dulmi iyo waxbaa dhacay iyo waxbaad ku wareegaysaan laakiin xaqiiqda idinka fursan mayso waxa iman doona ninaan ka talininana waxa markaa jooga kama talinin muuse biixi baa ka dambeeyey ina kahin baa ka dambeeya ironkeer iidoor waa iidoor hadday ka dambeeyaaso waxa go'aya reerahoodii maaha bartig joogaan maa loogu tago maxaa diidahaya adeerayaalow ma awood idinka hortaagan baa jirta oo maanta idinka celinaysa maya adeer carruurtiinnu si ay u nabad gasho ilmihiinnu dhaxal si uu u yeesho gabdhaha daarood si ay sharaf ugu noolaadaan iyo ilmahooda taariikh baa qormaysa dhulbaanta iidoor oo dhan la dagaalamaya iyo urur soomaale iyo daarood baa iska jooga war waxaasu wax la qaadan kara maaha waxaasu wax la qaadan kara oo nin dambeed loo qaadan kara ma aha dibaddana waynu ka buuxnaa oo maal waa ka buuxnaa daarood haddii la yidhaahdo gudahana waynu joognaa 20 milyan oo dollar inaynu dibadda kale ah hal mar ka diyaarinaynu awoodnaa oo aynu diyaarino 10 kun oo gaadhi oo teknika waynu awoodnaa daarood ahaan waxaan awoodnaa dhowrka kun ee ciidanka meesha ay keeneen 200 oo kun inaan dul dhigno oo xaggaana hargeysa laga dhaqaaqo xaggana ilaa iyo ceergaabi iyo laga dhaqaaqo iyo sarinta maxaa keenay iidoor inuu ina hawaysto innagaa xun oo diirka ka xun innagaa xun oo diirka ka xun dhulbaanta intaa xabadu ku socotaa 2 sano 5 milyan oo gobolka puntland degan
iyo 12 milyan oo ogaadaya degan baa deris la ah oo dhulbaanta uu u dhaxeeyaa ceeb ka badan miyaad garanaysaan ma garanaya anugu war waxaan idin leeyahay dulmi geysan mayna iyo halkan aan fadhiyaynaa maaha weligay waxaan arag anugu weligay waxaan arag dhulbaantow mar walba oon hadla anugu ereygaa waan ku daraa laba ciidan oo col ah oo isgarab fadhida laba ciidan oo col ah oo isgarab fadhida oo ishor fadhida ma duuli kartaan in laydinku soo duula mooye anugu languageka nooca macnaha uu shaqeeyo ma garanin dee ninku hadduu ku gaadahayo oo weligaaba inuu kugu soo duulo uu diyaar u yahay dee jaanisyo badan baa jiroo lagaa helahayaa dee waa afcelin weeye saasu ha dhaqaaqina wiilasha inaad dhahdaan waa afcelin labada ciidanka gudaha jooga waxaan idin leeyahay anugu askarta macnaheedana waan aqaanaa madaxweynaha ninka waddanka ka ah labada ciidan hadday ishor fadhiyaan xitaa lagama amar qaato goob dagaal baa la dhahaa ciidanka askariga dagaal gelinhaya sargaalka dagaal gelinhaya go'aanka iskale inuu dagaalka wadiyo inuu joojin inuu weerariyo inuuna weerarayni go'aanka iskale haddii goob dagaal ba ay tahay saasuu u shaqeeyaa garaadadii baana yidhi joogi iyo waxa maaha nimanka dhimanaya waa idinka nimanka goob joogana waa idinka inaad ismaqashaan waa sax dulmiga cuqaashu inay idinka qabato waa sax laakiin dee maalin walba in lagu soo adiga nin aad sor fadhidaan adiga uu kugu soo duulo adigoo ka awood badanna aad sugto iyaduna waxa weeye waa arrin kale anugu intaa waxba dhihi maayo taana inta aan kaga gudbo maxaa ii soo hadhay waxaa ii soo hadhay harti beriga hore waad gurmateen haa dhaqaalo waad bixiseen haa ciidanna waad geyseen naf iyo maalba waad geyseen waa sax laakiin kuma filla markay ugu yar tahay harti waxaa laga sugayaa iyo puntland waxaa laga sugayaa 5,000 oo ciidana iyo markay ugu yar tahay ilaa 1,000 gaari oo technica kuma filla reebel baa socda meesha aad leedihiinna qoys baa tihiin daarooda oo meesha degan oo harti ah waxa aad haysataan oo dhan intaad isku waxaysaan 1,000 gaari oo iyo dhowr kun oo ciidan hal mar noo soo dhaqaajiya idinkana taasaan idin farhaya haddii ay jiraan cid soo qabsanaysa waan soo qabanayaa oo hadlaysa daaroodka kale uma malaynayo inay nimankii la odhan jiray daryo u qabsanayaane daaroodka cid qabsanaysa haddii ay jirto soo qabsada baan soo dhaweynayaa dagaalka dan baa laga lahaa dagaalka dan baa iikaadi waxaa la yidhi doqon halka ugu daran bay lowdaa maalin walba waan idin dhahaa qoladan garxajisku waa maati caana leh siyaasiyiinna ma laha cuqaalna ma laha waa niman jabay qaabkii loogu talagalay bay arrintu u socotaa qaabka loogu talagalay muxuu ahaa dagaalka in la rido doorashada maalmaheeda ina kaahinoo leh meelaha iyadoo doorasho lama geenayo cod laga soo qarxiyana waan arkayay bartaan soo idinma lahayn maalinka dhawada hadalka ahaa magaalada la yidhaha burcawey xaggan kale ka socda doorasho kama dhacayso waana intaa hor jeclada waanu la soconaa le ay ka codeynaysiin 5,000 oo cod oo jeebkiisa ku jirta oo uu dhigtay meel ninka la yidhahda muuse biixi waa 5 halkaa ii qabo 5taa cod horta ii qabo 5,000 dhowr kun oo ciidana wuu diyaarsaday ninka la yidhaahdo muuse biixi baa wixiisu bannaan ku yaallaa liqa ama ha liqin ama hiil walaal noqo ama hiil harti iidoor noqo ama yusra harti noqo aday kuu taallaa reexamarku maxay dhahen basbaas ninkii cuna mooradiisaas ka taba wallaahi waa billaahi waa tollaahi siyaasaddan bay aniga oo ka hadlaya inaydaan arkaynin nin garxajis hadduu soo baxo oo muusoo bannaanka iman waayo liqataana laakiin waxaa arrin la yaaba leh cod baan idinkaga gadanaynaa baa la yidhi col baan idinkaga gadanaynaa baa la yidhi cod in la iskaga gato waa sax laakiin geemka la dhigahayo iyo kaartada laydin dhigahayo iyo waxa meesha yaalla ma dareensan yahay garxajisku maya
ma dareensana niman dareensan ma tiidin waxaan idiin sheegayaa soo hadda lama lahayn dhowr qori ah kay aad la tagteen ee meesha shirqool baad wataan idinma rabno waa xaqiiqda dhabtaa fada maha fadin waa lagu fadsiine taana waxaan idin leeyahay war niman yahow i dhegaysto qora hadalka hadday soo baxaan siyaasadda baano islaamku ka soo baxay mar dambe anigoo ka hadlay siyaasadna ay arki maysaan war waan idin salaamahaya yaa soo qabtaa xaafadannadii maanta yaa ku jira absamo kuwada yaa ku jira halba arrin baa idiin taalla meeshantada soo qabsada wixii absamow soo qabsada daarood kale hay dambeeya iyo soomaalida kale ninkii absamow soo qabso arrinta odayaasha jigjiga ka hadlay ciddii information ka haysa ee reeraheenna anugu ilama ekayn koofiyad baclayaashaan arkayay reeraheennii niman mateli kara iyo odayaasheenni midne bal soo qabsada ma joogaan baan u malaynayaa adduunka annagoo maqan baa la qaybsan doonaa war yaa ku jira daaroodka kale soo qabsada ama soomaalida kale okay maarka waxa codsaday waan idin salaamahayaa insha allah intaasaan kusoo koobahayaa soomaali maxameday waa mahadsantihiin asalaamu calaykum